محمدين وبشكل بيناية كمو بلن حال بيهم كبسوغي هاي لكن قدر ويا قصة بنا إله ما يقدر سيدنا ولا عندنا إلى نلسه حددناته أما حددناه يقدر سيدنا بعدنا ما هو إحنا جدا شو حدي كل نتيجة هديك اللي بنا واحد كده فكرته سيدنا كمان واحد لا هذا يعني بيسوي طيرة ما ها أدري يوم ما كنا نبغى نبيسوي طيرة بلا هذا وحيد لكم النام محمد وكلا وهم ونوضع عنا هيون ونعاين نسوس عنه وحنا نقدر سجنا ومن هذا إننا سمطر وسجنا آخر بحد جوله كتير إذا كان جارهان بيت الميجريشن كا ورسولنا الناس سمطر هروسه وقد كان كان سيد محمد وكلا دون لكم رجاليه هالكيسة محمد يقدر تعاو هالكبير تدين سنة يتبادل شهر يجي تابع عليه mana aqbali doono inaan noqdo magaciyaal bal dadkii imika caawa waxay noo sameeyeen xaflad qaran oo looma kala hadhno adiga arkaya ka waran dayno aroos qaranna ka codsano su-aashaa faraxataan ka jawaabo arooskaygu waa 2021 haddii guurtidu dib u dhigin haddayna tiireegayna wayna maqlaysaa maxaad inuu teginaysaa halkaas ka soo arkaya hortayde safar dheer oo gabilaya looga yimi caawo nalala joogaa iyadii asxaabtoodu way maadsan ma tilmaamaa dadka bal hal mar ha loo yar eege ilaahay umadiisa waa mangeli وإسكرنا سايرو وأنا قف محمد ودرجة درب المرايا حران عاوزن الله لا ننسى رجعنا درب المرايا حران بس يايا أنا قلنا ده واحد دسال لسوق الضمن وبعدين السلام عليكم سيدا نوبة لامبي إمام نوبين لكن عاونا قصة كنتي دمانتين أدبان إذن كل مكان نهكيا runtii sida wajiyadiina u qurux badan yihiin baan u rajeynayaan quluubtiina iyo qalbiyadiina u qurux badan yihiin qof wax loo hadiyadeena waxa ugu qiiman badan uguna qaalisan waqtiga waxaan idinka mahadnaqayaa kumanaan iyo malaayiin jeer waqtigiina qiimaha badan ee aada ii soo hurteen idinkoo kulamo iyo munaasabado kaloo ka qiimo badan kayga tegi karayay laakiin aniga isoo ixtiraamay aada baan idinku mahadnaqayaa ugu horeyn sida nolosha caadiga ah waxaan ka dhashay qoys ka kooban hooyo iyo aabe waxaan ku dhashay deegaan miyi ah oo buuraley oo dhaca gobolka Sanaag buurta caanka ah ee surud ee iskuulada ku dhigan halkaas baan ku dhashay deegaan hoonna hoos yimaada magaalada Ceerigaabo magacaygu waa Maxamed Muuse Jaamac dadkuna waxay u yaqaaneen Maxamed Haldoor waxaan dhashay sanadkii 1995 anoo halka aan idiin sheegay ku dhashay Ceerigaabo waxaan soo galay 2000 si aan nolosha magaalada u bilaabo marka waxaa la keenay adeerkay waxaan la noolaa muddo 8 sano ah 2008 baan Hargeysa u soo wareegay si aan noloshayda magaalo u sii horumariyo waxbarasho baa la keenay markii sidaa la keenay waxaa la socday walaalkay oo iga yar oo caawa halkay la jooga Cabdullaahi waxaana lagu daray school boarding oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa iskuulkaas markaan dhiganayay muddo 9 bilood ah ayaan xanuunsaday habeen markaan salaadii subax tukaday runtii subaxii markaan macallimiinta u sheegay inaan aad u xanuunsanayo dabadeed waxa dhacday waxaan ku yidhi hal fasaxo marka waxay igu dhaheen waxaad samaysaa waad iska ladnaanaysaa intaadii seexo dabadeetana ilaa 3 cashaan boodhinkii ku sii xanuunsanayay xaaladaydii markii adkeynayay inaan ka soo reynayn ayay igu dhaheen waad tegi kartaa oo magaalada Hargeysa dhakhtar u raadsan doontaa kabacdi subaxii waxaan ka soo raacay baskaasi wuxuu tuulooyinka u dhow ka soo qaadi jiray caano wixii arday boardinga ka tegayna uu sii qaadi jiray subaxa lacag 10,000 oo boardinga ka dhex shaqaystay ee jeebkayga ku jirtay shaqadan boardinga ka qaban jirayna haddaan idin sheego ardaydii waxaa loo keeni jiray cuntooyin sida kalluun sharaab muqmad
ardayda qaar baa lacag haysta qaarna waxay haysan jireen muqmad markaa waan u kala iibin jiray 10 kun aan shaqaystay ayaan maalintaa jeefkayga ku jiray waxaa dhacday markii aan baska soo koray iyo ninkii baskii wuxuu igu yidhi 4 kun baa hadgeysay ilaa halkaa lagu tegi jiray dabeetana wuxuu igu yidhi yaa kaa bixinaya lacagta marka qof kasta oo boardinka dhigta hal naanays buu lahaa naanaystaasina waxay ahayd meeshuu ka yimi marka aniga ceeri gaabay ay odhan jireen waxay dhaheen ceeri gaaba waan garanaynaa xitaa hadduu bixin waayo annagaa ka bixinayna kabacdi baska waxaan soo raacay anonis kala garanayn xumad aad u daran ay hayso gurigaygii baan imid markaa waxaa laga geeyay dhakhtarkii markii la geeyey waxaa dhacday in uu ibaaro dabeetana wuxuu igu yidhi waxaa ku hayay xanuun xasaasiyada adigu wuxuu ii soo qoray kiniin farahaygaa laaleeg oo kiniin geel caalkii geelka lagu joogalaa dabeetana waxaa dhacday inaan kiniinkii ku xanuusto dabeetana waan iska joojiyey waxaa dhacday markii aan wiig bukaan socod ku ahaa guriga aan guriga joogo ayaa habeenada ka mid ah waxaa dhacday inaan aad u xanuusto waan kacay dabeetana waxaan damcay inaan musqusha galo waan soo kacay sariir baan ku fadhiyey markaan sariirtii ka soo kacay ee aan doonayo inaan albaabka ka baxo si aan musqusha u tago ee waxaa dhacday waxaan ka dareemay jirkayga guud ahaantii culays iyo wax badan oo aan horada jirkayga uga arki jirin gacmihii iyo lugihii iyo wixii oo aan qaadi karayn dabadeetana waxaa dhacday albaabkii baan sii sakatuurada fur gacantaydii way awoodi weyday inay sakatuuradii furto dabadeetana waxaan damcay inaan dib ugu noqdo sariirtii waayo way ii suurtogeli weyday inaan albaabkii furo din waxaa dhacday inaan sariirtii lafteediina aan ku noqon kari waayo dabadeetana habeenka waxaan xasuustaa waxaan seexday furaash dhulka yaalay oo dheeraad ah go-muu saaray sida aan iminka u fadhiyo ayaan u seexday labadeeda jilibna way taagnaayeen waxaan seexday hurdo aanan seexan intii xanuunku hayay dabadeetana waxaa dhacday subaxii ayaan in adeertay oo aan salaamayo imka jarmalka joogta ay kicisay waxay igu tii kaalay ku raaco dabeetana kacbaan is idhi lugtaydii maaha gacantaydii maaha luquntaydii maaha waan qayliyey maxaa igu dhacay weliba xanuun baa aan ka dareemaya waa lay qaaday isbitaalka mala keligay waxaa laygu celiyay ninkan idiin sheegay kiniinka dabeetana wuxuu yidhi luquntaada soo qaad maba soo qaadi karaya baan ku yidhi dabadeetana wuxuu ii sheegay in meningitis uu igu dhacay wuxuu igu yidhi waxaad ii geysaan waarkayga markaa cisbitaalkii baa laygeeyey markii cisbitaalka laygeeyey ayaan adeertay ku yidhi in adeer cisbitaalka goorman ka baxay waxay igu tii 5 cisho kadib baad ka baxay waan arkayay 5 cisho marka baxayn waxaa jiitantada 3 bilood baan cisbitaalkii ku jiray waxaan arkay jirkayga oo iska bedeleen lugahaygii oo dhuurtay muuqaalka jirkayga oo isbedelay runtii waan niyad xumaaday aad baan u niyad xumaaday laakiin waxaan ku faraxsanaa qofku marka uurka hooyadii ku jiro 3-4 ayaa waxaa loo baraa khayr iyo shar wixii ku dhacaya dabeetana aad baan runtii uga niyad jabay waayo waxaan soo qaatay 12 sano oo nolol qurux badana oo lugahayga meel kasta ku tegi karayo laakiin waxaan galay nolol koobka biyaha markaan baado qof ii keenayo mararka qaar waxaa dhici jirtay in markaan doonayo in ama kaneeco qaniito inaan qof u yeedhan ku dhaho halkaa iyo xog dabeetana waxaa dhacday cisbitaalka laiga soo saaray cisbitaalka markii laiga soo saaray inta ugu badan canjalad baan dhegeysan jiray waxaan dhegeysan jiray reeriyowga dabeetana gurigaa lay keenay intaana cisbitaalka laiga soo saaray waxaa cisbitaalka igu yimid doctor gaboose dabeetana doctor gaboose adeerkay alaal naxariista cabdiraxmaan ducaale gudoomiyihii hore banka ee somaliland ayaa iigu keenay cisbitaalka wuxuu ii sheegay in xanuunkan badanka 3 stage buu maraa qofkuu ku dhaco qofna waa qof sideedoo kalaa qofna waa qof khalaas noqdo dhageed ka daato iyo qof markaaba uu dilo dhintaa dabeetana wuxuu yidhi ninkan maxameda dawadiisu waa jimicsi hadduu nafta dhibo oo jimicsado laga yaabay in ilaahay ka kiciyo laga yaabeyna laakiin inuu sidan dhaamo marka handicaptaa la geeyo awoogay cali jaamac inuu la fadhiyan rajeynayaa haddii kalena uu ii soo socdaa waxaa la geeyey handicaptaa la geeyey runtii 3 bilood baanaan kicin xubnahaygii oo dhan baa adkaaday lugihii subaxii baa la geeya waa laygaga soo cabaadiya mararka qaar waxaa dhici jirtay inaan jaro qolaalka laygaga cabaadinayo waayo aad baan u nabcaa sida lay gelayo laakiin aniga dantayda bay ahayd dantayda laakiin markaa way dhibayeen sida laygu jimicsanayo xanuun badan baanan ka dareemayay inanaan halkan aada uga mahadnaqayo imika laygu yidhi maraykan bay joogtaa iyo mararka qaar waxaa dhici jirtay iyadaan ugu jeclaa wax kalena may ahayn
kuwa kale markay sidaa igu jimcisayaan toos lugteeda u kala bixin jireen iyadu waxay ku odhan jirtay maxamed cabdifalaash baan kuugu yeeraya markaas cabdifalaash waa ayo waxay odhan jirtay waa oday waa oday ciyaalka u sheekeeya dabeetana waxay ilowsiinaysaa inay lugtii xanuunto markaasaan arkaa inay gaadhay halkii xanuunaysay dabeetana waa soo tadahaa des inantaasaan u jeclaa farduus baa la odhan jiray waa hore iskuulkaa dambeysay guriga markii laii soo wareejiyey dhakhaatiirtii waxaa lay keenay nin buka boqol u tali baa la yidhi waxaa lay keenay islaamo odayaal shiikhiya ah laba ayaan idinka soo qaadaya kii koowaad waxaa lay keenay nin shiika deetan anaa maxamed kicinaya anaa daweynaya markii lay keenay uu soo fadhiistay ana waan hadal badanahay muujimla weliynimada igu soo socotay ninkii waxaan ku yidhi dictor maya shiikh baan ku idhi waxaan ku yidhi seedii daweynaysaa intuu aamusay oo saa ii eegay ayuu igu yidhi waxaan xidhnaa garan cas wuxuu yidhi garankaas cas baanba ka boodayoo dawada aan ku daweynayo ayuu iga horjoogsanaya bixi waanaga la muurma ku yidhi sidee bay u dhacaysa deetana waa la iga saaray garankii inta la qaaday baa qol kale la geystay aanan u xidhan la dawadii buu horjoogsanayaa kalabaadna wuxuu ahaa maalin anoo handicapta jooga ayaa waxaa ii yimid nin markaa arkay deetana dadkii familiga ay la socday buu inankan nafaaqdaraa sidaa u gashayoo anaa daweynaya oo san dawada 2 bilood baan cunto fuula u qoraya dabadeetana waxaa dhacday gurigaa lay keenay waagii adeer wax badan wanaag buu la jeclaa adeerka cabdiraxmaan ducaale wax badan buu ila jeclaa wuxuu yidhi waaye dawey 2 biloodna anaa qarashka ku siinaya ninkaa uun haddii dee wax u tarayso deetana wuxuu ii qoray in subaxii beer lay siiyo maantii hilib lay siiyo habeenkiina cunto wadan lay siiyo horta runtii waan ka noolada waan naaxay aad baan u naaxay mararka qaar waxaa dhici jirtay markaan ninkaa la hadlo aan ku dhaho dictor loos baan rabaa 2 kiilo oo loos ii keeni jiray inta haddaan ka gudbooday sidii layla tacaalaya caafimaadkayga dee waad aragtay noloshii socodka ahayd waan ka baxay waxaan idhi hami badan baan lahaa sideed noloshii usoo geli kartaa dhankeed ka soo geli kartaa idaacaddaan dhegeysan jiray walaashay khadiijo muuse imka uganda joogta ayaa waxay ii keeni jirtay canjarada heesa ku duuban yihin dabeeta markaan heesaha dhegeysto unbaan dhe hees maanta dhegeystay maxaad ka faa'id codkayga unbaan intaan masoxoban codkii ku duuba codkayga marka hore wuu xumaa laakiin marka ka dambaysa wuu soo hagaagayo joornaalkan subaxii aqlin jiray markii dambena macalinkayga mustafa almuuse halkaa joogo 2011 ayaa waxaa wadanka kusoo biiray adeeg aqoonmaal la dhaho shirkadda telesom waan soo furtay markaan soo furtay adeegga ayaa waxaa dhacday 3 bilood markaan isticmaalayay aan halkiina wararka ka akhriyo dee waayo subax kasta lacag uma hayo joornaalku waa 2,000 ayaa waxaa dhacday in ay shirkaddii telesom soo wacday igu tiri maxamed baa ani ahaa maxaa jira baa kuyidhi waan telesom oo maxaa dhacay markaasaan ku yidhi weligeyba shirkaddii may soo wicin dabeetana waxay igu dheheen adeeggaa ma isticmaasha haa abaalmarin baad ku guulaysatay mobile baad ku guulaysatay sooto waa nin kici karaya ma dad guriga igu keenaysaan baan ku yidhi ii kaale markaa waxaa ii yimid macalinkayga mustafa halkaasuu fadhiyaa guriga igu keenay aqoon maal baan sidii wararka ugu akrin jiray wararka barnaamijyada ka diyaarin jiray idaacaddii radio culture damcaynan dhaqaajiyo radio culture dhammaantiin wax laga yaaba inaad ka wada dheregsantihiin laakiin aan idiin galo idaacaddu maaha idaacad shortwave ama fm oo meel gaadha laakiin waa idaacad qofkii u yimaado u dhegeysan karo radio culture waxay ahayd idaacad barnaamijyo lahayd barnaamijyada waxaa raaci jiray steelka ay raacdo idaacadda nimanka jooga radio hargeysa qur-aankan ku fuli jiray muusigeer baan raacin jiray wararkii suugaantii barnaamijyadii saas markaan u sameeyo idaacaddii waa 2 bog waana canjalad boggaa markay gaadho si dadkii aan ii fahmin waxaan oran jiray dhegaystayaal idaacaddaydu waa canjaladii xagga kale si ay wararkay warbixinada la socoto ama sidii u duubta canjaladaydii sidii u duubta ayaa maalmaha ka mid a niman walaalkay saaxiibkiin baa ii yimid warkaygiiba dhegeystay waxay gu dhaheen niyow aad baad u fiican tahay laakiin bal waxaanu kuu keenaynaa tifiyada inay warbixin kaa sameeyaan dabeetana warkaygii waxaa la wadaagay adeer cabdiraxmaan ayaa wuxuu la wadaagay nin universal joogi jira laakiin imika muqdisho joogay yaasiin xuseen ismaaciil la dhaho oon halkan ka salaamayo yaasiin baa uu sheegay 2012 baa markaa uu sheegay dabeetana
adigu sidii laygu soo socday ayaa 2015 dhammaadkeedii ayaa waxa ii yimid Universal oo ilaa intaa soo jeedamaysay waraysigii dabeetana waxa ii yimid Cabdishiid Cabdiwahaab iyo Cabdiraxmaan Dalmaron saxaafadda ugu jeclahay oo nimankii igu horeysay warbixin iga sameeya runtii warbixin wanaagsan oo dad badan igu barteen oo markii dambena CV noqotay ayay iga sameeyeen markii warbixintii iga sameynayeen wax badan maan fahansanay markii ay yimaadeen waxaasi nimanku markii waraysigaagan qaadaan kadibna shaqay ku siinayaan dabeetana markii waraysigii dhamaysteen ay qaadeen ayaa waxaa daawaday dad badan baa ila soo hadlay waxaa ka mid ahaa nin aan halka ka salaamayo runtiina caawa aan jeclaa inuu ila joogo laakiin waqtigu ii saamixin Axmed Maxamed Cilmi la dhaho oo runtii wax badan noloshayda taray wax badan igu biiliyey garab badan ay siiyey hiil naafoodu la dhaho ayuu gudoomiye ka wuxuu yidhi adeer runtii way dadaalaysaa laakiin waxaan doonayaa inaad aqoontaadan iyo dadaalkaagan aqoon ku kabto deetana soo daydayo buu igu yidhi waxbarashada dhanka saxaafadda iskuullada lagu dhigo runtii Faadimo Yaasiin halkaa fadhida wacdi bafas ku xigta ayaa ii timid lay soo diray waan israacnay iyo Cabdicasiis Qalindhoof hadduu jooga caawa waxaan tagnay iskuulkii ugu horeeyey kii ugu horeeyey wuxuu noqday jaanjaro saasaan iskaga daynay waayo anu jaanjaro ma koobi karo kii labaad laakiin arrin ka duwanaanka ayaan kala kulmay wuxuu ahaa macallinkii iskuulka ayaa markuu arkay dadkan ila socda ayaa wuxuu siiyey ninkan malaha hay'ad baa la wadatee lacag badan ku dhufo runtii wuxuu igu yidhi caadiyan $10 baa lagu dhigaa Somaliland iskuulka markaad saxaafad baranayso dabeetana wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa inaan lacag $70 kaa qaado waxaan ku yidhi ma haysto $70 wuxuu igu yidhi si gaaran wax kuugu dhigaya adiga waxaan ku yidhi maxaad ardayda iga dhex saaraysaa iskuulka dad adiga kula mid ah baa iga bixinaya oo mutatawiciina adiguna dee nin wadaniya baa tahay islaamnimo soomaalinimo somalilandarnimo intaa igu naxariiso runtii macallinkii in badan wuu is adkeeyey laakiin dee waa isfahmi weyne ana waan ka tegey maa niyad jabin sababtoo ah qof kastoo in dhammaanteen halka fadhiya wuxuu aaminsan yahay maalin maalmaha ka mid ah inuu dunida ka tegayo oo dhimanayo oo wadku imanayo ana saas baan u aaminsanayaa maalin maalmaha ka mid ah inaan weliye noqon doono waxaa dhacday idaacadaydii baa iska duutay markaan iskuulkii soo waayay laba iskuul saasaan ku waayay idaacadaydii baa reerka gooljanno halkii baan iska fadhiista maalmaha ka mid radioga dhegeysta anuu radiogii dhegeysanaya ay TV-ga ayaan daawaday xayeysiis baa kasoo galay iskuul baa la xayeysiinayay laba walaalaha ayaan u diray oo bal iskuulka ka wardoon runtii macallinkii iskuulkaas ayay warkayga oo dhan u sheegay waxaan labadii iskuulba kala soo kulmay iyo xaaladayda iyo wax walba ku saabsan aniga Maxamed ahaan dabeetana waxaa dhacday in macallinkii runtii dadku isku dareen maaha isku bini'aadantinimo maaha isku shakhsiyad maaha isku abuur maaha wuxuu yidhi runtii waan ka xumay Maxamed waxaa soo gaadhay waxaan doonayaa inaad Maxamed aniga ay soo dirtaan saan u wada hadallo dabeetana waan u tegay subaxii intaanan u gelin sheekadiisa oo dhan macallinkayga halkaas soo fadhiyaa runtii waxaan doonayaa inaan iskii baro macallin istaag adoraale markaan u tegey ayaa wuxuu ii sheegay in ay dib igu tahay saxaafaddu 6 bilood inaan dhigto wax badan baad fahansan tahay buu yidhi 2 bilood baan kuugu soo koobaya waxaad samaysaa iminka laga bilaabo oon ku barayaa soo qaado buugaagtaada runtii macallinka laftiisu halkuu wax ku dhigaa waa dabaq laakiin wuxuu ii sameeyey meel yaroo ismacaan ku xigta dabaqa oo geerash birahan spare partiga gaboobay ee hore lagu iibiyo ayaan ku dhigan jiray xiisadayda adigu 2 bilood saasaan ku dhameeyey shahaadadiina waan qaatay arday shahaado qaatay oo aanay u cadayn meel uu shaqo tagaa waad dareemi kartaa markii ugu horeysay waan xasuustaa waxaan ila soo hadlay ninkaan idinka sheekanayay hiil naafo Axmed Maxamed Cilmi wuxuu igu yidhi radio Hargeysa yaa madax u ah waxaan ka garanayaa Xasan Maxamed Yuusuf lambarkiisa raadi buu yidhi waan raadiyay waan u qoray Xasan buu la hadlay wuxuu ku yidhi ninka hayaro dadaalaya ayaan doonayaa inaad Xasanow wax la qabatee waan kuu soo dirayaa deetana Xasan baa ila soo hadlay habeenkii wuxuu yidhi waxaad igu timaadaa wasaaradda warfaafinta runtii taxi baan qaatay farxii biligaa dhaweeyey muu jirine waxaa dhacday taxi baan qaatay taxiga markaan qaatay wasaaradii tegey runtii waa sidaana de ma aan ahayn Maxamed lay garanayo askarigii meesha iga wadiyey wuxuu igu yidhi
kuma sii daynayo. Waxaan ku yidhi xasan baan la ballansanay. Wuxuu yidhi aniga noomuu sheegin. Wuxuu yidhi meesha ka dhaqaaq. Runtii waxaan ku yidhi xasan ayaan kuu garaacayaa lahda. Hay garaacin buu yidhi ka dhaqaaq meesha. xasan baan garaacay waxaan ku yidhi adeero waan taaganahay askarigina wuu celi. Wuxuu yidhi adeer meeting baan ku jiraa kulan isoo taag ku dhee una sheeg. Waxaan ku yidhi waa kan la hadal adeer waa nagu dhiibay. runtii maalin labadaana bay ahayd maxamed ahaan markaan ugu dhiibay wuu la hadlay soo taaba ku yidhi askarigii joogay beriga wasaaradda waraabta 2015 bay ahayd ayaa wuxuu markuu taleefonkii dhigay wuxuu igu yidhi macnuu maxaan ku caddayn karaa ama ku garan karaa qofkan aad igu dhiibtay inuu xasan maxamed yuusuf yahay. waxaan ku yidhi anigu waan soomanahay laga yaabo inaad adiguna sooman tahay miyaad ii rumaysanayn waayo xasan maxamed yuusuf baa kula hadalsiiyey. runtii inankii taksiga waqti badan baa ka qaatay lacag baan kusoo kiraystay. wuxuu igu yidhi walaalow laba mid same inaan halkaa ku dhigo kaa tago iyo inaan gurigaa kaa keenay kugu celiyo waayo dee waad aragtaa laynama sii daynayo. dabadeetana xasan baan ku celiyey anoo runtii aada u niyad xumaaday ayaan xasan ku celiyey. dabeetana xasanna wuxuu yidhi kumuu soo dayn miya haa. dabeetana waxaan ku yidhi walaal ideji adna iska tag ceebba ahay gu yimaado xasan maxamed yuusuf. dabadeetana markii aan degay baaskiilkii lay dhigay ayaan arkay ninka askariga baaskiilkaygii kala tuuray. runtii xasan baa soo baxay markaan arkay xasan runtii aad baan u ooyey markaan xasan arkay. dabadeetana markuu ii yimid xasan ayaa waxa dhacday raalli ahaada xasan markuu ii yimid ayuu soo baxay wuxuu igu yidhi markaan arkay horta xasan aad baan u ooyey waan ooyey. dabadeetana markuu xasan ii yimi ayuu waxa dhacday ninka askarigaa buu ku yidhi ilaahay miyaad ka baqayn bal qofkaad celinaysa noocuu yahay eeg waxay intaad soo qaada inaad xafiiskayga igu keento. dabadeetana runtii markii wasaaradda la geliyey haddana dareen kalaan galay waan iska ilaaway wixii kadinkaygaga soo dhacay waayo waxaan u socday halkaan u socday baan helay xasan maalinka waan xasuusta aad buu u xanaaqsanaa baaskiilkana xoog buu igu waday. dabeetana wuxuu yimid meeshii inaan wasaaradda ka tirsan. dabeetana wuxuu xafiiskayga ii keen markaan xafiiskii tegey 30 daqiiqo ayaan ku sugayay xasan maxaa dhacay baan yidhi. dabeetana inan adeer aanu ahayo dee qalabka wasaaradda ka shaqaysa qaybta soolna ayaan la hadlay waxaan ku yidhi wasaaraddii baan joogaa xasan baanan sugayay welina iimu iman. dabeetana sikeliya iisoo dirtay imika halka ka kacay sikeliya iisoo dirtay. dabeetana sikeliya aan ku yidhi walaal waxaad samaysaa igu yeedh waxaad igu yeedhaa xasan maxamed yuusuf baan doonayay isaga aanan sugaya. dabadeetana xasan maxamed yuusuf baan ku yidhi igu yeedh sikeliyow. dabeetana sikeliya igu soo noqday wuxuu yidhi walaal waxaa dhacday xasan geed halkana ayuu yaalaa oo xanaaqay wixii lagugu sameeyey ayuu xanuunsaday markaa uu ku imanaya. runtii xasan maxamed yuusuf abaal weyn aantu goobin baan u hayaa markasta beriga calaf kumaan yeelan inaan ka shaqeeyo wasaaradda faafinta. runtiina waxa dhacday halkaas waan kasii socon doonaa. waxaan bilaabay inaan habeen kamid a waxaa la soo hadlay inaanu saaxiibnahay iminka ostri jooga oo dho khadar cabdilaahi wuxuu yidhi maxamed waxaan doonayaa in buug aan qoray aan kugu soo casumo inaad igala soo qayb gasho weliba buug baan ku siinayaa. runtii faadmo yaasiin baa habeenka ay kaxaysay markaan buuggii u tegey anoo jooga halkan waxay ahayd soonyo. habeenkii markaan tagnay ayaa waxa dhacday waxaanoo buuggii baan kasoo qaatay xafladdii waxaanu ku kulannay shaksi noloshayda wax weyn ku darsaday adeer maxamed baashe xaaji xasan. markii waxay igu yeedhay nuuro cabdi xamed inay joogtaan rajeynaya caawo. dabeetana xirta adeer inanka yar baan doonaya inaan iskiin baro runtii aad buu u niyad fiican yahay aad buu doonaya inuu wax u qabsado adeer inanka yar ayaan doonaya inaan ku baro. markuu saa ii arkay yidhi maxamed horaan warkiisa u arkay oo inan weersan cabdiraxmaan la dhaho weersan haddii caawa joogto aad baan u salaamaya ayaa iisoo diri jirtay fiidiyooyo badan iyo warbixino badan oo uu leeyahay oo odhan jirta adeer inanka yar waxaan doonaya inaad wax la qabato.
dabeetana maxamed baashe wuxuu igu yidhi maxamedow weligaa t v maad ka hadasha may baan ku ma doonaysa inaad ka hadasho waxaan ku adaa dee taas isweydiin male ma'daba ka daa baan ku dabeetana wuxuu igu yidhi waxaad ku biyo cabtaa telefishinkan aan ka shaqeeyo nagaasimaha kahay inaad ka hadli doonto intaa markuu igu yidhi runtii hareerahan eega waxa ku tolo ma run baa mise waa been dabeetana waxaa dhacday dabadeetana waxaa dhacday markii aan ka imid xafladii wuxuu igu yidhi lambarkayga qoro 1 week kadib ila soo hadal oo ii kaalay marka aynu isu nimaadno markaasaynu ka wada hadli doonaa waxaan kuu qaban karo iyo ku eegi doonaa inaad ku fiican tahay waxaan aad doonayso dabeetana 1 weekii habeenkii markaan guriga tegey xaafadii tegey hooyan garaacay waxaan ku hooyo shaqaan soo helay hadda shaqo rasmiya ma aha dabeetana markaas uti walle ilaahay kuu barakay hooyo imadaadana ha kuu saqiro dabeetana habeenkii maan seexan waxaan ku fikiraa anoo stuudiogii jooga wararkii aqriyaya haddana waxaan arkaa anoo qolkayga ilaa jooga dabeetana 7 sano igu noqotay dabeetana maalintii baa la gaadhay waxaan wada soconay faadimo yaasiin iyo qalindhuux ayaan u tagnay maxamed baashe CV-ga keliya sitay wuxuu ahaa radio culture ayaan sii qaatay dhegeyso waan ku wada waxaan duubaa barnaamijyadeedii iyo wararkeedii iyo warbixinadeedii markaan u geeyey runtii wuxuu yidhi aad baanu kaaga mabsuudnay maanta kadibna waad nala shaqayn doontaa maalintaa waxay ahayd 2016 bishii 9/9/9 runtii waxaa dhacday TV-ga Star aad baa laygu soo dhaweeyey maalintii ugu horeysay waxaa laga diray warbixin ku saabsan arrimaha naafada waa soo diyaariyey runtii TV-ga inta ka shaqaynayay aad bay dadkii aan halkaa ka wada shaqaynaynay ii jeclaayeen hablo iyo wiilalba oo ay soo dhaweyn jireen inankoodoo kalaan ahaa runtii mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu xisaabtamo maalintan imanayo inamada editinka aniga iigu jeclaayo wax kalena may ahayne warka inta ugu yar daqiiqadaha ugu yar baan ku akrin jiray runtii 3 sano aan telefishinka joogayna abaal weyn bay nolosheeda gashteen waanan ku faraxsanay Star TV inaan kasoo shaqeeyey waxaa dhacday 2018 ayaa farax baa habeenii la soo hadashay waxay ku tiri maxamedow waa fursad waxbarasho waxaa soo baxday jaamacadda Hargeysa diplom weeye ka waran hadaynu gallo dabeetana waxaan ku yidhi waa caadi walaa laakiin mid baa jirta baan ku yidhi anigu dibadiyaan xanuunsada waxbarasho igu dambeysay shahaadana ma haystay maxaa xala waxay ku tiri waxaa la eegayaa saxaafadda badankeeda Somaliland sida caadiga ah runta haddaan sheego inta shahaado haysataa way yartahay dabeetana waxay tidhi kuwaana wax badan ayaa laydin qiimeyn doonaa kaalay farax baa wax kastoo jaamacadda igaga xidhnaa hadday CV noqoto hadday warqad noqoto qaadi jirtay soo qori jirtay geyn jirtay dabeetana markaan wax walba soo dhamaysanay ayaa waxa dhacday in imtixaan la qaado 80 arday baa imtixaan gelayay 80kii arday waxa dhacday waxa la doonayay 40 arday anna waan dareemayaa waxbarashada waxay igu dambeysay markaan xanuustay farax waxay igu tahay habeenkaas saaxiibo haddii aad soo bixi weydo anaa imtixaanka gelaya markaan galo haddaan soo baxo booskaygaas ayaad geli doontaa niyadda inaga xumaan dabadeetana markii imtixaankii la galay runtii Soomaaliya English buu ahaa ilaahay fadligiis waxba adag oo igu adkaamay jirin imtixaanka natiijadeedii habeenkii faraxii soo sheegtay waxaan ahaa qofkii 9aad ee 40kii soo baxa markii ay soo baxday 40kii la doonayay ayaa waxaa dhacday in la dhaho aniga de maxamed ahaan ardayda kale imanaysa lama midii oo ka duruufta wanahay ardayda kale lugahooda ku imanayaan aniga waxa loo baahan yahay jaamacadda Hargeysa iyo guriga masaafa u dhaxaysa gaadhigii na qaadi lahaa baan ka fikiray murugada ugu badan iyo waxa ugu badan aan dareemanay aniga farax wuxuu ahaa gaadhigaas dabeetana waxay ku tiri habeenkii ila soo hadashay saaxiib waad soo baxday de insha Allah waan bilaabaynaa jaamacad waxa ku farax maxaan bilownaa iyo inaga bixinaya gaadhi waxay ku tiri inta jir ka soo gudubnaa ka badane haniyo jabin xun baynu samayn doonaa dabeetana aniga fikrad igu soo dhacday farax baa la wadaagay subaxii halkan aan ku balanay iminkaan wada joogno adeer jaamac subaxii u nimi wax kastoo ku saabsanaa waanu la socodsiinay dabeetana adeer wuxuu yidhi ma intaas dabeetana wuxuu yidhi taxi maad garanaysaa mise mid baynu soo qabanaa mid baan garanayaa baan ku yidhi dabeetana wuxuu yidhi la soo heshi waxaad isdhahdaan
eed ku heshiisaan aniga ila yimaado dabeetana waan ula nimi ilaahay fadligiis adeer jaamac ayaa wadalkiina saarnaa aniga farax naga qaaday maalinkaas jaamacaddii sidii baan ku bilaawnay runtii inamo badan baa caawin jiray waxaa ka mid ahaa farax igu ballamisay siciid iyo cabdiqani iyo maxamed iyo cabdiraxmaan cali dhibiilo minka b b c da ka shaqeeya sanadkii waxbarashadii saasaan ku dhamaystay markaan dhamaystay runtii subaxii maalintii la qalin jebinayay aad baan u faraxsanaa anigii saaxiibkay barkad ayaa guriga iska soo wada raacnay markaan nimid qalin jebintii runtii maalinta aad baan usoo labistay suudkaasaan xidhnaadee halkaa kan xafladii nimid ayaa saan u joognay ayaa macalin mustafa kelmad ku qornaa anigu iga hadlay in badan dabadeetana wasiir maxamed muuse diiriyaa nala joogay maalinka aad baan arkay wasiirkoo madaxa u ruuxaya dabeetana markaasaan tolo wasiirku muxuu leeyahay dabeetana wasiirkii markuu hadalka qaatay in badan hadlayay ayuun baan hal mar waxaan maqlay sacab dhacaya maxaa dhacay iyo kii igu xigay igula war hambaliyo maxaa dhacay 11 sano kadib xiliyadeydii baa rumooday inaan radio adkiisa ka shaqeey waxaa dhacday markii aan jaamacaddii dhameeyey shahaadadii laysiiyey runtii maalinta waxaa arday badan baa iga aqoon badnayd iga awaayo aragnimo badnayd iga dadaal badnayd waxay ii garteen ardaygii galaaskaas xaafadda ugu fiicnaa bilada imika la toosinaya xagga dambe ayaa maalintaa laysiiyey dabadeeta waxa dhacday 8 casho ka bacdi wasaaraddii baan tegey wasaaraddii runtii wasiirku wuxuu ku ballamiyey tiimkii markaa joogay in ay arrinkayga galaan runtii abaalka ugu badan ugu weyn waxaan u hayaa agaasimahayga wasaaradda warfaafinta mukhtaar maxamed cali oo la jooga aad baad agaasima u mahadsan tahay walaashay nasiim hadday la joogto caawo aad baan ugu mahadnaqayaa asiya ciise jaamac sina maxamed cabdi oo joogta sakariye axmed maxamuud cabdicasiis yamani bataash runtii mana toosane aad bay igu soo dhaweeyeen wax kastoo wasaaradda ku saabsanaa oo hadday noqoto in shaqaalaha rasmiga ah layga dhigo waxaa arrinka si weyn u galay oon doonaya inaad sacab wanaagsan u duntaan mukhtaar maxamed cali oo jooga runtii hadalkii waan idinku dheereeyey idinkoo faraxsan oo farxad igu yimid mar waan idinka murugeysiyey middaa waan idinka raali gelinayaa arrinka ugu dambeeya ee aan u gelayaa waxa weeye niman yahow anigu talo badan idinma siinayo laakiin waxaan idiin sheegayaa haddaad in uun yool leedihiin hami leedihiin wax idiin qorshaysayiin niman yahow iyo niman yahow un baan hayaa iyo dumarow waxaas hay idinka go-naadaan haddii intan halka joogto caaw aniga ila doonayaan inaan horumar gaadho oo aan anigu diyaar u ahay ma suurto gelayso waxa aad doonaysa inaad gaadheen waa inaad jeclaataa marka hore niyad wanaagsanna waa inaad ku gashaa waxaa kale aan idinku dardaarayaana inaad ilaahay tala saarato wax kasta oo aad qabanayso talada ilaahay u dhiibo talada ugu dambeysaan idin siinayaana inkastoo soo noqon doono oo hadday noqoto mahadcelin iyo wax walba aan kusoo noqon doono waxaan idin leeyahay runtii aad baan idinku mahadnaqaya siaad ii dhegaysanayseen allah idin sharfo way isku soo noqon doonaa insha allah war weyn baan idin hayaa sida uu sheegay waxay suu kaa horeysay 2011 xilligaas oo aan ka wareegay xafiiska public relationka ee telesom oo aan u wareegay xafiis la odhan jiray R&D ama research and development oo aqoon maal markaa hoos iman jiray marka xilligaa aqoon maal lama odhan jirin laakiin 150 news baa la odhan jiray marka ujeedada ugu weyn aqoon maal loo sameeyay waxay ahayd maadaama digital media loo guuray oo qof kasta oo inaga mid ah uu mobilkiisa wararkii oo dhan ka heli karayo in bulshada loo fududeeyo aqoon maal faa'iidadiisana waxaa inta badan garanaya dadka tuulooyinka degan ama miyiga jooga laakiin inteena magaalada joogto waxa laga yaabaa inaan war ka hayn marka aniga nin cabdilaahi maxamed khaliif la oran jiray baan ahayn inta badan waxaa la sameeyaa aqoon maal abaalmarin buu leeyahay abaalmarintana waa dadkii ugu isticmaalka badnaa marka maxamed waxa uu noqday dadkii ugu isticmaalka badnaa si random selection loo soo saaray
qofka uu noqonayo ma garanaysa inta badan gobolada waxaa loo saaraa alaabtooda ama agabkay ku guulaystaan baabuurtaa loo saara waa loo diraa laakiin maxamed markii aan la hadalay wuxuu hargeysaan joogaa waxaana ku nidhi sida uu sheegay alaab baa ku taale soo doono marka wuxuu yidhi nin lixaad laanahay ma soo doonan karo marka aniyo maxamed cabdilaahi khaliif labadaydiiba shaqadii baanu ka dhaqaaqnay gurigii buu noo tilmaamay gurigii adeerkii cabdiraxmaan ducaale ayaanu ugu tagnay oo maxamed oo jiifa ninkaa idla hadlaya waxyaabaha ugu xiisaha badnaa nooga sheekeyey waxay ahayd waxaan leeyahay wuhi barnaamij radio golchando barnaamijyadaad sii daysaan ee aqoon maal ayaan dib u duubaa marka barnaamijka igu xiisaha badan waxa la dhaha buhi barnaamijka cajiib marka intuu barnaamijka akhristo ayuu cod ka dhigin jiray u duubi jiray marka radio golchando ayuu kusii dayn jiray marka annagana dhiirigelin bayna gelisay qoladii tiimkii aqoon maal ka shaqaynayay oo aad baan ugu faraxnay maamulkii baan wargelinay nasiib wanaag waxaa jira iyaguna rag kale oo kayskaasaan raacinayaa maxamed lamida oo iyaguna aqoon maal ka faa'iida waxaa ka mida nin isaguna ka mida macaamiisha aqoon maal oo maskaxda ka jiran oo meel ku xidhan marka isagu inta badan waxaanu ku garanay inuu xanuunsanayo 250 kun oo fariimood buu soo diray habeenkii muu systemka buuxiyaayo aroortaa lagu soo toosnaa fariimo wada malaayiin wada xikmada markii dambeenu dabagalneenu baadhnay aroortiina islaan baa naga qabato tiraahdo anigaa iskale baalkee jim baa soo diray haddaba waan yaabnay maalintii dambe islaantu way noo warantay waxay nagu tiri inankay waa xanuunsanayo guriga igu xidhan ayaa ku maarishooba aqoon maal oo barnaamijyadoo dhan ayuu muxuu ahaa kala socdaa marka isagana si gaara naga warhaynaa halkaa waxay muujinaysaa in war kama hayno inagu barnaamijyadaynu sii daynayno laakiin haddii la dabagalo oo barnaamijyo anfaca laga dhigo tv-ga iyo raadiyoga iyo jaraydada dad aynaan garanayn baa ka faa'iidaya maxamed mar labaad waxaan isku nimid jaamacadda hargeysa kooraskaa uu ka qalin jebiyey dibloomada ayaan macalin lagu ahaa intii uu tababarka ama koorasku socday waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah maalintaa uu sheegayay maxamed musadir ilaahay khayr ka siiyo uu ku abaalmariyey inuu raadi hargeysa ka noqdo madax anigaa mikrafoonka qabsaday hal baan ka codsanayay markaa mas-uuliyiintii meesha joogtay barnaamij digriya jaamacadda hargeysa laga bilaabayay oo saxaafadda marka waxaan ka codsanayay mas-uuliyiintii meesha joogtay digriga jaamacadda in loo ogolaado maxamed sababtoo hal shardi baa ku xidhnaa shardigu waxaa secondary shahaadada secondariga inuu ardaygu haysto maxamedna muu haysan marka waxaan ka sheekeeyey mushkiladaha maxamed ka hor istaagay inuu shahaadadii secondarygii qaato marka adigu waa la qiirooday maxamed muuse markaa kacaysigu waxabuu ku abaalmariyey muxuu ahaa inuu shaqaale ka mid noqdo wasaaradda warfaafinta ilaahay ka abaalmariyo waan soo koobayaa waxyaabahan maxamed ku bartay waxaa ka mid ah intii u dambeysay o dhan la saaxiib baan ahaa waan la socday wixii talooyin aanu kala qaadan jirnay anigoo keligii talama siin jiray isna talooyin bii siin jiray 3 qodob baan markaa kusoo koobayaa 3daa qodob waa marka koowaad waa qodobka inaanu qofku quusan inta uu nool yahay maalintii uu barnaamijkan magaca u bixinay buu yiri macallin maxaan u bixiyaa waxaan ku yiri ha quusan u bixi sababtaa waxaa jira dad badan oo lixaadkooga qaba oo nolosha ka quustay iyo qaar kaloo lixaadla laakiin waxa qabsan karo nolosha ka quustay marka maxamed maaha nin quusta waa rajo socota marka qodobka koowaad waxaynu ka baranaa qofku inaanu quusan inta uu nool yahay qodobka labaad waynu ka baranaynaa waxa weeyaan maxamed waa nin go-aan leh qofku inta uu nool inuu go-aan yeesho hadafna yeesho idinka arkay dhibaatooyinkii ka hor yimid intii uu dee muxuu ahaa doonayay inuu habeerkiisa shaqaale ka noqdo dhibaatooyinkii soo gaadhay laakiin umuu joojin ilaa uu aqalkii ku guulaystay marka inaad go-aan yeelato intaad nooshahay ilaa intaad hadafkaaga gaadhayso qodobka saddexaad ee maxamed ka bartay waxaa ka mid ah inaguna ka barayno waxa la dhaha empathiga waa qof la tacaadufo dadka kolba xaaladda uu joogu la istaaga macnihiisu waxaan oran karnaa kabaha qofka inaad la xidhato markaad u sheekeynayso empathic listening wax la dhaha buu leeyahy wuxuu kuu dhegey si fiican buu kuu dhegeysanayaa wuxuu odhanayaa caqabad kastoo nolosha ku soo marta labuunu kala qaybi midaad wax ka qaban karto iyo midaad waxba ka qaban karin tusaalahaan oo kale hadday shaqalaani ka hor timaado ama aqoon la-aani ka hor timaado ama shahaado la-aani ka hor timaado sidaa maxamed haddaad wax ka qaban karto waa inaad wax ka qabataa oo ah inaad dadaasho inaad dhinac kale ka wareegto haddaad laakiin waxba ka qaban kari weyday sida naafanimada oo kale geeri kugu timaado qof eelkaaga oo dhintaa waa inaad la noolaato marka caqabad kastoo ka hor timaado laba u kala qaybi midaad wax ka qaban karto ka qabo ku dadaal mid waxba ka qaban kari weyday inaad la qabso la noolow dhammaan dhalinyarta siyaasiyiinta mas-uuliyiinta assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
runtii xaqiiqatan dareenkaygu aada buu isku bedelay maxamed yare hadalkiisii iyo xogtiisii oo isma lahaa taariikhda uu inooga sheekeeyey iyo dhacdooyinka iyo agkiisa ama da-da uu leegyahay marka waxa weeyaan da-du macno badan ma samayso laakiin macnaha waxaa le qofku waxa uu soo joogay iyo noloshu waxay bartay macalinimada nolosha maxamed waan u hambaliyeynayaa runtii sida quruxda badan iyo dadaalka uu ku soo gaadhay halka aynu caawa joogno iyo dadka intaa leege runtii ilaa xagga dibaddu ay caawa buuxdo ee la qaybsanaya maxamed murugadiisii iyo farxaddiisiiba ilaahay baa mahad leh xaqiiqatan anigu uma arko maxamed inaan abaal gashaday waanay iga naxsaday una dee waxaas lahaa un mas-uulkiisii oo u yimid oo un baan u arkayey maxamed runtii wasaaradda warfaafinta ama mas-uuliyaan ahaan wax dheeraada maanu siin laakiin wuxuu xaq u leeyahay oo muwaadin somalilandara waa nin dhalinyara waa nin han leh waana nin ay ka go-an tahay waxa uu doonaya ama adeegaan bulshada u haynaa waa wacyigelin iyo warfaafintii waxaanu u shaqaynaya wariyaasha in la soo qabtay oo reer ahaan lagu keenay oo la yidhi galo lagu qasbayo iyo qof isagoo han leh oo wax doonaya xaqiiqatan ma sina maxamed nin han leh oo iga go-an tahay buu ahaa annagu runtii intaanu kulanay way yarayd maxamed marka hore waxaa iigu horeysay habeen malaha rabadaan ahayd oo maasoor wax ka jira ma garanayo ayaanu maxamed isbarno nabarka kale qorano isugu kaaga horeysay markii dambena wasiirkii wasaaradda warfaafinta maxamed muuse deeriye wasiirkii hore ayaa soo qaatay meel public ah markii dambe waxaanu ka shaqaynuun sidii bayroolka loo gelin lahaa maxamed bayroolkiisa iyo siduu u galay runtii qofna calafkiisa ayuunbuu cunaa wasaaradda warfaafinta waxaa joogay markaa shaqaale yimid 2013 ilaa iyo maanta dad joogay oo temporary ah baa joogay oo ilaa intaas aan wax mushaara haba yaraatee qaadan hablo iyo inamaba leh laakiin si labaan u qaybinay shaqaalaha gobolada iyo gobolka maroodi jeex markaa shaqaalaha wasaaraddu aad bay u badnaayeen ee temporary-ga ahaa waxay ahaayeen 79 shaqaale ah ayuu maxamed soo dhex galay dadweynkaas oo weliba uu dadkii u dambeeyey uu ahaa markaa waxay noqotay in gobolada la siiyo ahmiyadda sanadkaa shaqaalaheeda maxamed waxaanu ku darnay shaqaalihii gobolada ayaanu siinay oonu ka mid dhignay isagoonan gobol ku qorin laakiin aan si cad ugu sheegnay ugu qornay inuu yahay shaqaalaha xarunta dhexe ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maxamed waxaweyaan calafkiisuu watay xaqna wuu lahaa maxamed keliyaata ma aha isla wasaaradda waxaa noo heli karay sanadkan inaanu inan wariye ah waxaa sidoo kale aanu qaadanay inan iyaduna dhagaha naafo ka ah oo wariye wariye ah saddexdaa qofba sanadkaa ilaahay waa ugu guuleeyey maxamed waxaan leeyahay wax badan maxamed oo kuumaanu qaban laakiin waxaan ballan qaadayaa maanta laga bilaabo in wixii karaankay ah shaksiyan iyo mas-uul ahaanba inaad kula qabto هميجانا إن شاء الله وحدنا كرم أيوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرشيد عبد الوهاب حسين. أدبر ما استمتع بالشيء.
mahadsan yahay macalin cabdishakuur maxamuud gahayr. maxamed hore waxaan idinku soo sheegay inay dad moralkiisa ama niyadkiisa dhisi jiray oo garab istaagnaa had iyo habeen ay jiraan. waxaan ugu horreysiin doonaa inan waa uu yahay oo markasta xaafadda ugu timaado maxamed ka taageerto dhanka niyad ahaan iyo dhaqaale ahaanba markastana dhiirigelisa. waa faadimo siciid xuseen faadimo qurbanaad. faadimo biixi oo ka mid ahay naligay maxamed isbarteen ururkii hiil naafo. inaad maqasheen sheekada faadimo biixi haddaydaan hore u ahaa inaad caawa baran doontaan haddii ilaahay ka dhigo. waa dadka iyada laftigoodu kasoo gudbay caqabada ah inuu qofka awoodiisu xadidan tahay. aan u horeysiiyo nasiib maxamed muuse, aan ku xujiyo aasiya jaamac ciise iyo sakeliyo axmed muxamed oo ah madaxa barnaamijyada reerwardiisa. soo dhawaada takbiira. mahadsan yihiin. waa saddexda qofka sida goonida ugu soo dhaweeyay wasaaradda maxamed. waa madaxa barnaamijyada reerwardiisa. waana nin si goonida uga shaqeeyay maxamed. waxaan u yeeri doonaa iminkana inan in badan ugu timaada xaafadda u keenta hadiyado kala duwan sabood iyo taageerada siisa. waa nuuralhuda cali goofas. mahad jaamac koranto. wuxuu ku caawiyey wax kastoo jaamacadda ku saabsanayn ama caqabad markaa maxamed u arkayay. waa doctor jaamac muse jaamac. halganuu maxamed bilaabay maanta inay ku taalo halkaas meel laga kori karaya. waxay ahayd tusaale meelo fara badan oo dadka ka mid ah oo ah hay-ado dowladeed fooqa qadhaaraynu dhisanay. haddaanu jirin cod sida maxamed oo kale meel kasta lagu taagan oo laysu raacayay oo loo wada tegayo lalahaa waanu u baahannahay halkaa. haddii aanay jiri lahayn maanta taasi may suurtoodeen. waxaan doonaya maxamed ugu mahad celiyo laakiin fariintan idin farayaa waxa weeyaan intayna halkaa joognaa maanta maxamed waxaynu saaxiib kula nahay in aynu fariintaa gaadhsiino cid allaale cid kastoo maamula, cid allaale cid kastoo mulkiilaa, cid allaale cid kastoo dhisanaysa guri inay intaa ku daraan. hadday intayna halkaa fadhidaa fariintaa aynu gaadhsiisano runtii aad baan uga gelinayaa maxamed
iyo rag kale saaxiibadii halka fadhiya xisbiguna waxaan jecel lahay kaalin weyn uu siiyey dadka naafada ah shirkaygaan xog dambeeyo way ka soo qayb galeen si weyn way ka soo qayb galeen waxaa kaloo dee u furayay xisbigu weli dowlad u noqon in qaybaha dhammaan xisbigana u furan yihiin dhalinyaro hadday yihiin iyo haween hadday yihiin iyo gobollada hadday joogaan intaba waxaan kaloo runtii bogaadinaya qof kastoo maxamed caawiye dadkaa faraha badan iyo qaar laga yaabo inaan caawa xusibaba laga yaabaan laakiin dadkaa dhammaantood waxaan isleeyahay tallaabo wanaagsan bay qaadeen maxamedna halkaa inu soo gaadho qayb bay ka ahayd sababtuu halkaa soo gaadho weli ismaaciila baan dhahay oo manan dhiigeysanin laakiin maadaama xukuumaddu tilibay horma ku daray maxamed annagoo gaariga baan ugu deemayna haddii aan ka dhigo sidii arrintaasi looga witahay maadaama taagnaa inaan fadhiisto weeyaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan shicibkii iyo asxaabtii ii timid ee kulankan igala soo qayb gashay haddaan kala qaadqaado dadkii gobollada iga yimid ay ahaayeen runtii kuwa isoo sharfay aniga sida habeenkan ila qaataan waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo madax badan oo xisbigiisa ka tirsan oo ka mid yahay xogayaha dhalinyarada xogayaha ciyaaraha iyo afhayeenka xisbiga runtii sharaf bay ii tahay inuu guddoomiyaha xisbigu ila joogo runtiina uu hadiyad qiimo badan oo gaariya halka igu guddoonsiiyo waxaan u mahadnaqayaa xarunta dhaqanka oo si wanaagsan ila shaqaysay guddoomiyaheeda jaamac muse jaamac iyo guud ahaan xarunta dhaqanka shaqaalaheeda iyo staafkeeda kala duwan waxaan kaloon u mahadnaqayaa macallimiintaydii iyo dhammaan dadkii kala soo qayb gashay hadday noqoto madaxda wasaaraddeeda warfaafinta ugu horreeya agaasimaha iyo wariyaasha iyo hablaha iyo inamada guud ahaan bahda saxaafadda dhammaantood allah idin sharfo